السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت لما تلاقوا نحرست انت حنوسين العافية وحمر الله وخيره إله سي آمين. وما أنت إله هدو حياتها هي صدقني بيشي كويتانا تكون أفر بقول أفر صدق وكوبيجن تدريتون كي بيشي شنات لابد يكون إلى عتن لحظة. حرام لو قد بنا الله الله قد كواد رئيس الوزراء إسرائيل ويا شيء إنه جيتدين أيتهاي inaan qabsano Gaza oo dhan haddana ciidamadana waxay haystaan boqolkiiba 60 taliyihii ugu sarreeyay oo ka dambeeyay maskaxdii weerarkii Oktoobar 2023 ayaan dilnay ee ciidamada xaqiijiyay inay dileen. qodobka labaad waxaan uga hadlayaa ra'iisul wasaaraha Britain UK Keir Starmer ayaa waxa ka hor imaadeen xildhibaanada ugu badnaa tan iyo markii la doorto aqlabiyad lagu doortay 2 sano inta ka yar ay hadda waxa ugu cadcad duqa magaalada Manchester United kaasoo Andrew Burham aad u taageero weyn u helayo aan xisbiga Labourka shaqaalaha ayaa ka soo horjeeda badanaa waxaan ugu cadaadinayaa in magaranaysa xilku iska casilo asagana wuu is adkeynaya. marka waxaan labadan qodob inaan uga hadlo ayagoo faahfaahsan. ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay ku dhawaatay inay disho dhammaan dadkii ay ku tilmaamtay maskaxdii ka dambeysay weerarkii Oktoobar 2023. hadalkani ayaa yimid kadib markii militariga Israa'iil ay ku dhawaaqeen inay dileen Izzaudin al-Haddad oo ahaa taliyaha sare oo ka tirsan garabka militariga Hamas. Netanyahu ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadiisa hadda gacanta ay ku hayaan boqolkiiba 60 marinka Gaza, isagoo ku celceliyay ujeedadeenu ay tahay in Gaza aysan mar dambe khatar nooga imaan doonin. dhanka kale dagaalka Gaza ayaa weli socda iyadoo sii kordhayso khasaaraha dadka rayidka ah iyo burburka jira deegaanka. kaas waxaa qodobka labaad duqa magaalada Manchester Andrew Burhan ayaa la sheegay inuu noqday qofka ugu horeeya oo si dhab ah khatar u gelinaya Keir Starmer, ra'iisul wasaaraha hadda jooga Britain. kursigiisa ra'iisul wasaaraha Keir Starmer kadib waxyar 2 sano markii xisbigiisa Labour uu ku guuleystay aqlabiyad weyn, hadda hoggaanka Starmer ayaa wajahaya cadaadis xooggan iyo suurtagal inuu burburo. sababta ugu weyn maxay tahay hoos u dhac ku yimid taageerada dadweynaha xisbigiisa. dadka oo taageeray oo aqlabiyadiisii ayaa hoos u dhac ku yimid. natiijadii liidata oo ka soo baxday doorashooyinkii hoose ee ka dhacay 7 May, xildhibaano badan oo dalbanaya inuu iscasilo doorashada hoose oo ka dhacday 7 May waxaa jira wax ka mid ah carqaladaha inuu magaranaysa xilka waayo. qiyaastii 100 xildhibaan ayaa ka mid ah 403 Labourka oo sheegay inay rabaan in Starmer iscasilo, halka 5 wasiir oo kale ay casilaad ay gudbiyeen. 100 xildhibaan ayaa
ogolaatay xisbigiisa inuu magaranaysa iscasilo odayga ka tago 403 meesha guud u ka yahay ay haddana 5 wasiir oo wasiiradiis ayaa gudbiyeen istiqaalada. waxaa sidoo kale jira tartan hogaameed oo imaan kara haddii 20% xildhibaanada ay si rasmi ah ugu taageeraan musharax kale. yaa la filaya inuu bedeli karo. waxa la filaya in uu bedeli karo waxa weeye magacyada dhowr ah ayaa la sheegayaa: wasiirka caafimaadka, wasiirka tamarta, duqa magaalada Manchester, Andrew Burham, iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore Angela Raymer iyo kale. intaas ugu cad wasiirka tamarta, wasiirka caafimaadka, duqa magaalada Manchester iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore. afartaas. Andrew Burhan ayaa loo arkaa kan ugu fursadda badan, halka inuu markii hore ku guuleysto doorashada gaar ah, doorasho gaar ah, kadibna uu helo taageero 81 xildhibaan bes si uu tartamo. inkastoo oo taageeradiisa sii kordhayso, weli lama hubo goorta ama haddii Starmer si dhab ah looga tuuri doono xilka. Oh my goodness, duqa waxa maahay aayad maahay ninka ugu cadcadna oo maalin taageeradiisa aad ay u badanayso waa Andrew Burhan, duqa magaalada Manchester United. wuxuu haysta taageero badan, aad loo taageeraya. xildhibaanada magaranaysa Labourka way badanayaan, way ka soo horjeedaan, waxay leeyihiin iscasil inta marada kaa dhicin. marka warjir wax kaaro imaanaya. waxaa labada qodob Netanyahu dee wuu iska hadlayaa, qasda wuxuu leeyahay waxaan rabnaa wuxuu mar dambe khatar dambe inay nooga imaanin. haddana waxaa haysanaa 60%. ciidamadeena waxay dileen taliyihii oo garab ka dambeeyay weerarkii October 7. ninka ka dambeeyaan dilay leeyihiin ciidamada ay xaqiijiyeen. markuu iska fafaanaya uu iska hadlayo si Donald Trump kale iska hadlaya. marka arkeena Xamaasna aydan ma garanaysaa waxay soo wado arki doonaa ma ka hormareeno. odagaan ma garanaysaa la leeqanaya Keir Starmer ra'iisul wasaaraha UK isna soo kale arkeena. waxaa fiican in hadda iska casila dhaanto. kulle waa laba qodob inaan soo wadaagro. waan salaamaya. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.